بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. marka ugu horeysa ilaahay baa mahadle mahadda labaad waxaan u naqayaa dadka reer Puntland oo halkay igu soo dhaweeyay oo kalgacaylkiyo imuujiyay tolnimada waa mahadda labaad u naqayaa intaa ka bacdi waxaa idinka tacsiyeynaya qorraxda saa tubnaydeen waa idinka mahadnaqayaa waa idinka tacsiyeynayaa anigu hadda markaad ila hadlayseen waan ooyey niman yahow ilmaa iga timi waxaa la uskag baa la halay dhalasho lama halo waxaan idinka maqnaa sanad iyo 5 bilood dadka shaqaalaha oo nabarka mooyaane dalka arki jiray iyo dadka aanu hiloobi jiray waan arki waayey saalafteeda hadda ilmo soo qabatay aad iyo aad baad u mahadsantihiin anna markaa caafimaad baan qabtay oo intaas aad ka maqnaado waan raagayo xanuun baa igu dhacado lug baa la gooyo caloosha laga qalado laabto aad baa dhaawacii gaadhi haddeer laakiin waa ladnahado kicida xoogaa igu adage aad iyo aad baan caafimaad u qabaa waad mahadsantihiin mid kale anigu horta nin raga ma iyo saad ii faahfaahinaysaan ma aanihi laakiin mid baan aqaan nin walla ninku iga xigo un baan aqaan anigu raganimo kale ma lihi laakiin anigoo nin harti ah oo daarood ah yaa nin kale kaadhiga marna kuma seexdo kumana soo tooso waayo meel kaleo anu guuro u baa waa cadowna anigu ma jecli mana rabo ma arki karo laascaanood waxay ugu dambaysay maantii subaxii la soo galay bay ugu dambaysay mana tegi doono nimanbaa igu yimi abudabayo somalilanho anigoo markaa sariir jiifa waxay yidhahdeen isuga sawirayna waxaan isugu sawiri maysaan niman kaleo gardhaadaa bay arkeen isku sawira oo dhumaanta oo anigu waxaan isku sawiri maysaan waxay ku yidhaahdeen markaa waxa marka hore ii yimi ee ninka la yidhaahdo madaxweynaha ii yimi asugu ka sawir waxay yidhahdeen oo qolaa Puntland baad isku sawirtaaye maxaad noo jeestaa Puntland marna waa annaga Puntland haddaa maqashaan waa annaga waa aniga ka soo qaad mid kale idigu Soomaali ma tidaan anigu Soomaali baan anagu nahay Soomaaliland nahay marka waxaa soo markaa laga soo gudbo anigu raganimo ma lihi neelbaxana ma ihi laakiin ninkaan hay baan aqaan horta amaantaas ay gudhaan ninkaan hay baan aqaan nin kale ma guuxo ma beheliyoobo ma jecli wax kama sugo holisa ma qaato kuwaadii sheegay waxay laag baan ku sidnaa qaadan maayaan walaa aanu qaadan billi anu waxaad ma qaadan laag baan ku sidnaa mid xagaltoos ayaa igu yidhi adar qaadan maayo nimaan isku qadeed ahayn oo aanaas rabin oo isku dawlad ahayn isku maamul ahayn holisaan uma qaadanayo mana rabo dad Soomaaliya lacag ka qaadan waayo horan ka qaadan lahaa marka anigu saasaan dhahay waxaan la soo Soomaaliyeed Puntlandnimada kaga tegey baan la soo noqday tibaadi kula joogaa tibaadi laayimi isma bedel doono intaan nool hayna halkaas ay ugu ogaanaysaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh